inaan u sameynay qaybtii rentalka discount boqolkiiba 30 ah mar walba nagu barteen oo aanu hadda nagu bushaareynayna baabuur cusub oo nadiif ah oo aan cid ugu horeyn inay ku damaashadaan oo ku dalxiisaan qaybta kale aanu runtii qabno logistics waxa kamid ah soo saarista fiisayaasha caalamiga iyo sidoo kale xareynta ticketska iyadoo maanta ay tahay maalintii afraad ee si rasmi ah carwada wax soo saarka Soomaaliland ay uga socoto magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaanu soo booqanay xafiiska ay ku leedahay shirkadda Kaafi oo iyadu ka shaqeysa kireynta gaadiidka iyo sidoo kale soo saarista fiisayaasha iyo deeqaha waxbarasho ee caalamiga shirkaddan iyo intii ay carwadu socotay waxay wacdaro xoogan ka dhigaysay carwadan oo si weyn ay uga dhex muuqatay barbarkayga waxa taagan maamulaha guud ee shirkadda Kaafi Car Rental and Logistics Maxamed Caydid Maxamed ugu horeyn soo dhawow waad mahadsantahay Andro walaal waan idinku soo dhaweynaynaa adiga iyo telefishinka caalamiga ee MMTV inaad nagu soo booqataan maanta oo ah maalintii afraad carwada bandhig ganacsiyeedka Soomaaliland oo ka dhacaysa hotelka Mansour Hotel ee magaalada Hargeysa shirkadda Kaafi oo ah runtii shirkad isugu jirta laba qaybood qaybta kireynta baabuurta oo ah car rental oo aanu kireyno baabuurta luxury-ga ee raaxada ee dadku sida gaarka u kireystaan taasoo aanu kireyno baabuurta noocyadooda kala duwan oo ay ka mid tahay baabuurta Toyota Wenton, Toyota Harrier, Toyota Land Cruiser baabuurtaasoo dhammaantood ah baabuur qofka macmiilka furiisu uu xor yahay isla markaana uu ugu safri karo dhammaan gobollada Soomaaliland waxay macaamiishayadu nagu barteen oo aanu hadda nagu bushaareynayna baabuur cusub oo nadiif ah oo aan cid ugu horeyn inay ku damaashadaan oo ku dalxiisaan Maxamed bal kulli carwadii wax soo saarka Soomaaliland baynu joognaa waa maalintii afraad idinkuna si weyn baa uga dhex muuqateen bal adeegyada carwadan sida gaarka bulshada ugu soo bandhigaysaan maxaa ka mid ah walaal Andro waad mahadsan tahay macaamiishayada customer-keega kuwii hore noogu xidhnaa iyo macaamiisha cusub ee shirkadda hadda ku soo biiraya Kaafi waxaan ugu talagalnay maanta aanu kaga qayb qaadanaynaa oo ah maalintii afraad carwada bandhig ganacsiyeedka inaanu u sameynay qaybtii rentalka discount boqolkiiba 30 ah oo ah in macmiilku markii hore qiimihii uu gaariga ku kireysan jiray baabuurta kala duwan noocyadooda kala duwan in boqolkiiba 30 offer aanu u sameynay taasoo ay intay carwadu socoto oo aanu customer-keega ku soo dhaweynayno taasoo ay ka soo dalban karaan waxa weeye 3361 oo ah nambarkeega kooban call centerka iyo sidoo kale app-ka Bravo ay ka soo dhex dalban karaan 336 xidig 230 kulli sad sheegtay laba qaybood baad qabataan oo qaybtii gaadiidka oo imika aad si fiican uga warbixisay maca qiimo dhimista samayseen waxaa jirtay in qaybta logistics-ka ama soo saarista fiisayaasha iyo deeqaha waxbarasho iyaga maxaa kala ku daraysaa oo adeegyadaas oo bulshada fursadan aad uga faa'iideynaysaa walaal waxaanu anagu qaybta logistics aanu qabanaa scholarshipska caalamiga taasoo aanu ugu adeegno dhalinyarada reer Soomaaliland gobol kasta ay joogaan kuwa high schoolska ama iskuulada sare ka baxay inaanu u raadino deeqa caalamiya oo aanu runtii u xareyno isla markaana u soo saarno qaybta kale aanu runtii qabno logistics waxa kamid ah soo saarista fiisayaasha caalamiga iyo sidoo kale xareynta ticketska oo customer-ku runtii meel kasta ay dalka ka joogaan ay ka goosan karaan tigidhada diyaaradaha kala duwan ee Soomaaliland xafiiska Kaafi si guud Maxamed oo markaad u eegto ugu dambeyntii door noocyada bad isleedahay shirkadda Kaafi bulshada ugu jirtaa runtii taa waxa ka marakacaysa Andro customer-keega iyo bulshada shirkadda Kaafi intii ay runtii jirtay ka howlgalaysay caasimadda Hargeysa runtii waxaanu bixinaa adeegyo aanu ku saleynayno baahida bulshadeeda hadday timaado dhanka baabuurta baabuur cusub baanu keenay haddii ay timaado dhanka waxa weeye adeegaanu qabanayno adeegaanu ku base gareynay customer satisfaction iyo strategic plans aanu ku waxa weeye base gareynay oo mar walba ka duulaya baahida bulshadana aanu la noolahay iyo waxa weeye baahidooda ha qabtiraya marka runtii walaal taa bulshada iyo feedback-eeda aanu deenaynaa annaguna runtii mar walba waxaan isku dayaynaa inaanu soo gudbino inta adeeg ee la bixiyo shirkadda bixiso habka ugu sarreeya iyo qaabka ugu sarreeya aanu soo gudbin karno